haddaan Soomaali nahay runtii ilmaha waxaan fahanaa markii ay dara sameeyaan ay weynaadaan laakiin ilmaha dareenkooda inuu ka bilowdo inta ilmaha caloosha hooyadood ku jiraan ma fahano sababtoo ah marxaladda hooyada haddii kacsan tahay oo ay xanaaq badan tahay oo ay maaragtay stress ku qaaday uurka saameyn wuxuu ku sameynayaa ilmahaas inay calooshooda ku jiro ay saameyn ku sameynayaan teeda kale ilmaha dareenkooda waxay bilaabaan markay yar yihiin naaska markay rabaan way ooyaan baahi markay qabato way ooyaan markay dareemaan cabsi safety markay dareemaan way ooyaan anaga waxaas ilmaha marka ay hadalkaaga maqlaan guriga hadalkiisa hooyadii aabbaha hadalkooda maqlaan sariirtu iskaga jiri karaan hadalka markay maqlaan laakiin markii hooyada seexato la wada seexdo ay guriga oo maaragtay aamusnaan way ooyaan marka anaga waxaan dhahnaa suuriya ka batay ha u kicin iyo ha u tegin yaa la dhahaa markaas ilmaha bilaabaan inay dareenkooda xumaado oo xanaaq isku bedelaan ay oohin isku bedelaan markaasay fahmaan ilmaha in waxa ay rabaan xanaaqii qayle ay ku helaan sababtoo anaga ilmaha dareenkooda ma dhageysano waxa ilmaha dareenkooda bilawnaa inaan dhageysano markay ooyaan markay wax naga rabaan mise markayna dhibaan marka taasna waa qalad ilmaha dareenkooda aan la dhageysanin wuxuu saameyn ku sameeyaa dhaqankooda cabsidooda badanaysa kalsoonidooda yaraanaysa dhaqanka ka xumaanaya dhaqanka xun ay baranayaan inay tahay in ay lugaha dhulka garaacaan inay wax tuuraan markaas kadib la dhaho waa ku jeclahay inaan ku nacmaa rabtaa habla sii la fadhiisiyo